xaaji saambusiyaad jecleedna waan kuu sameeyey kani waa saambusihii timirtii qaxwihii maasha allah ma waxbaa kaa dhiman waxaan ku anfurkan ka macaan habeenadan ma baan cunin maxaa tidhi xaaji anfurka maahe maryamtaydii aan aqaanay ayaanan ogeyn meelay ku dambaysay cabdiyow ma aniga mise adiga adigu soodigan subax walba orodka ku jira maaha ee xitaa rabadaantii waqtiima helaysa cabdiyow mushkuladdu sow khudradda iyo suuqanaan jooga sow maaha waan iska joojinayaa si ay dhibaatadu inooga yaraato cibaadadana aan u guto bisha rabadaan maryanay ma run baad ii sheegaysaa haa waa go'aanaan gaadhay waan ku faraxsanahay warkaas waxaabaan kugu jecelahay sida fiicanaad ii fahanto waan ka xumahay laakiin waan ku faraxsanahay inaan arko farxaddaada carruurteennana gurigan inoogu haynaya mahadsanid maryanay isu dhoganugulaan baa reerkeenna u dana anfurkana cuno haya xaaji hay cuno anfurdeo dharkiina waanigaa kuu kawdeeye dhar qurux badan xidho marna kumaan dayacine waan kaa yara mashquulayuun mahadsanid iminkaad tahay dee maryantaan jeclaa laakiin cabdiyow maxaad ka waday naa kalaan raadsanaya waxba gacaliso keliya cadhaa iga keentay wakhtigeediina waaba dee la soo dhaafay waaryae mid kaa soo go'day bay ahayde goormaad keenaysaa anna gurigaan ku wareejiye intaan ogahay qof dumarahoo sidaa yeeli kartaa ma jirto maryanay anigaa u horraynayee balkeen adigu maryanay wixii kaftana iska tuur marnaba ma jecli inaan xaas kala yeesho adiga ayaan ku jecelahay ma hubtaa cabdiyow hadalkaa gabadh baan keenayaa aniga wuxuu ila ekaa inuu ka soo go'ay qalbigaaga xaasha maryanay keliya anigu waxaan rabaa in nolosheenni sideennii hore ee fiicneed ay ku soo noqoto waxay kaa ahaydba war jiraa ankaaru iman faysalow albaabka inoo xidh aye hooyo hooye macaan ii warran halkaa ka timaadeen duhurkan kulul faysalla waa kii soomanaaye naa maxaad i leedahay intaad saaka qaba weyday taleefankayga oo ninaan kan faysaloo sooman aroosna ah hurdadii ka toosiyey alla hooyo ma dhakhtarkii baa tagteen ma dhakhtarkii baa tagteen bay ku leedahay adigu saaka xaggeebaad qabatay yaasmin walaal saaka malaha waad ka lahday markaannu ku weyne baan hooyo dhakhtarkii u raacay naa miyaad iilowdi ooye balsug yaasmin cadhumaad kuladu dhacdeen dukaanku sow ka madhan waaba wada boodhase wax u jiraa waad aragtaa inuu madhan yahaye maxaad iga weydiin naa yaasmiine dukaankii wuu kacay unbaad i tidhaahdaaye meheerkan madhnaashiiyaha ah ayuu gaadhay anigu hooyo idinmaan diidi karayn wax walbo aad doontaan dukaankayga ayuunbaan ka bixin jiray waa taa sagxadda madhan soo hadhay ilaahow sagxad madhan hana dhigin oo hooyo miyaanad wax kaydaba haysan faysalow adigaa ii sheegay inay habboonayd inaan dukaankayga caymis geliyo waan kuu sheegay waa runtaa maxaad ka sheegi haddaba waxaan halkaa ku waayay alaabtii ugu badnayd aan soo waaridi lahaa macmiishii ka warran waxaaba layga rabay inaan macaamiishii wax u celiyo adiguna faysalow waxaad u baahnayd aroos aad u weyn walaal horta eeg joog ha iga dhex gelin hadalka arrintaa waad ogeyd waxaad soo jeedisay inaan aroosadaada quruxda badan aanu iibiyo dhar aad u qaaliya hooyo waa runtiisee miyaanay hodan aad u qurux badnayn isug hooyo hodan dharkeeda waxa uu iibin lahaa qoyskeeda haddaan reerkooda wax u geyn lahaa unbaan u iibin lahaa dee hooyo adigu waad og tahay inaad burooyin leedahay waxaanan raba inaad daawaynta ugu wanaagsan heshid qaalina way ahayd hooyo khasaarahan dhulka inala galay miyaanad wax kaydaba u haysan dadka ganacsiga ku jiraa lacagahooda kuma wada kharash gareeyaan qoysaskooda waxay mudnaanta siiyaan ilaalinta ganacsigooda aniguna taa maan yeelin adigu ma wixii aad haysatoo dhan baad gelisay qoyskeenna eeg waxaan iibiyey dahabkaygii kaydka ahaayoo idil siuu dukaankaygu igu sii furnaado laakiin lacagtii kharashaad bay iga wada noqotay waxba ma hayo iminka allah sidaa dee miyaan u ogaa haddaba hooyo yaa kharashka daawayntaada bixinaya adiguna faysalow sidaad xaaskaaga u haysan doontaa adigoo weli ardaya waa su'aal da'weyn weeye iminka miyaa isku kay hallayn kartaan waa arrin xalkiisu ina wada sugayo waxaad i gaadhsiiseen inaan ku kaco waxyaabaan caqliga gelayn oo ganacsigaygina dilay waana salaamay yaasmiin kirada bisha soo socota madii haysaa assalaamu calaykum walaal cabdi rabadaan kariim
maalmahan kumaan anaga magaaladu meed ka maqnay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد ما يولا الوان شوقي وحوقع شقدي اسمها أيوم بايقو بنايدو تكل بحالك الشقد وتهي أيوم باكو تكنشي ما شاء الله كورن عرورتي يا حافظتي والحمد لله رب العالمين وان وضوا عنها يا شيخ بارك الله فيكم بارك الله فيكم شيخ وحن ربعين الأرهن قلت لسو سودو عبد aniga iyo xaaskayga ayaa ilaa rabadaanta ka hor muranuna kala dhex taagnaa soo rabadaanta inaad dhexdeeda ku xallisaan may ahayn sheekh maxamed xaaskayga waxay bilowday in ay waxoogaa khudrad ah ku iibisay aqalka hortiisa aniguna arrinkaa waan ka bidiiday ee arrinkaa diintu maxay ka qabtaa waxaad ula jeedaa ganacsi bay bilowday haa waa caynkaa sheekh horta cabdiyow dumarku inay shaqaystaan wax diintu ka qabta ma jirto tusaale waxaa inoogu filan xaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee qadiija waxay ahayd gabadh ganacsato ah oo tijaarada rasuulkuna wuu taageeri jiray miyay jiraan wax xun oo ay samaynayso ama aad dhibsanayso marka laga yimaado ganacsigeeda maya sheekh wax xumaan oo ay samaynayso haba yaraatee ma jirto haa sax haddaba qur-aanka ilaahay inooma sheegayo meel lagu diidan yahay inay dumarku shaqaystaan maasha allah sheekhow diinta in la bartaa waxa ay muhiim u tahay nolosha iyo adduunyadaba waxaabaan anigu u haystay in aanay diintu oggolayn inay dumarku ganacsadaan horta cabdiyow shaqo waa sharaf maanta waad arkaysaa oo waad u jeeddaa magaaladeennan toosan waxa dhisme horumar ganacsi isdhex socda dumarkeennuna inay waxa diintu ogoshahay oo xalaala ka shaqaystaan amba ka ganacsadaan waa horumar inoo soo kordhay uun sheekh maxamedow waad ku mahadsantahay arrinkaa diinigeedii bayaamisay cabdiyow aadba shaqadaada soo ma jecelin sawaxanka aan yarayno rabadaan kariim dhammaantiin ku soo dhowaada xafladda aan ku daafurayno ganacsiga cusub ee gabadhayda igraan iminkana iyada ayaa idinla hadlaysa waad mahadsan tihiin eedha ku soo dhowaada dukaankayga cusub ee dharka dumarka waxaan doonahayay inaan u bixiyo dukaankayga magaca hooyaday iyo kayga oo la isku daray hooyadayna waaba diidday mar haddii farshaxanka toolidda dharka dumarka iyadu leedahay dukaankuna uu gaar u yahay waa lagama maarmaan in loo bixiyo magaceeda hooyaday magaca ii bixisay bay la rabtaa dukaankaygana ina loo bixiyo maadaama ay igraan tahay cunadaydii noloshaydan bishay waxaan ugu ladhay ganacsigeeda igraan bilaa siday aniga ii bishay ayay ganacsigeedana u bilaysaa waad mahadsan tihiin hedha soo dhowaada ganacsatadii aan hore ugu koolan rugta ganacsiga iyo martida kaleba dhammaantiin hedha waa daawan kadhaan dukaanka igraan ma aragtaa dad badan ayaa yimi xafladda furitaanka ganacsigaage hedha nashqadan hooyo ayaan gaar ugu sameeyey way yaallaan kuwo kale oo badan oon anigu sameeyey xagga hore ayay yaallaan weligood iyagoo kale lama arag balday walaalay waa indhadaraandare mahadsanid walaal xaggaa hore ka eeg walaal kuwa igraan kuu sheegayso igraan hooya dadka tustus waxaa u gaarka ah dukaankaaga hambalyo igraan maasha allah dahabkii quruxda badnaa ee hooyadaa keeni jirtay iyo dharkanaad keenta way isku soo baxayaan hooyo bal eeg qofkaa soo socda naynkaarane maxaad ugu yeedhay aabbaha miyaanad ogayn in xafladda jaamac imanayo oo aan kala hadlayo ganacsigayga cusub assalaamu calaykum isir sidaad ilaa tahay weli ka warran quruxdaada waxba ma iska beddelin jirkaaga waxba ma iska beddelin igraan naa maxaad u soo marti qaadday odagaygii hore wuu ka soo hor jeedaa haweenka ganacsiga ku jireen hedha waxaan rabay inuu aabbahay ka soo qayb galo furitaanka dukaankayga cusub allaha barakeeya aabbow ganacsigaaga dukaanka waa dukaan aad u weyn aadna wuu qurux badan yahay maashaa allah soo dhowow aabbe maanta ii suurto gashay fikirkii ganacsigayga inaan kaga dhabeeyo igraan u sheeg martida inay sharaabka cabbi karaan hubina saxaafaddu inay qaadeen dhammaan sawirradii loo baahnaa igraan aabbo waxaan ku weyddiiyey ninkaas soo gelaayo oo wiilka la socdo ninkii habartaa ay xidhiirka lahaayeen ma aho yaa hedha waa jaamac xasan waa maalqabeenka iskale shirkadda weyne dhismaha oo ma garan weydey bal hadda aabba halkan i yara fadhiiso soo dhowow jaamac in kastoo khudbaddii furitaanka aad in yar ka soo dib dhacday maasha allah hambalyo igraan ganacsi aad u qurux badan baad bilowday bilicda ganacsigaaguna hooyadaa isir baaba ka muuqdaa mahadsanid adeer jaamac nashqadaha dharka oo badan oo anigu haddeer aan sameeyey baa yaalla iyo qaar aan dibadda ka keenay adeer bal hadda fiiri dukaanka oo dhan meeshaad daydaaba waa meeshii kale
allah kuu barakeeyo waan kuugu ducaynayaa inuu kuu barakoobo sida hooyadaana aad horumar ka gaadho ganacsiga insha allah mahadsanid jaamac insha allah allaha ku guuleeyay inantayda ikraan ganacsigeeda cusub adiguna aad ayaad ugu mahadsan tahay maatinkaaga odagan madarawalkaagiibaa meel wadda aan dhigay gaadhigaygii hofraha iigu dhiib ha iga qaadee faysalow raadiyowga iga baktii halkanna soo fadhiiso hooyo meeda yaasmiin faysalow walaashaa yaasmiin khasaaraha soo gaadhay qaladkoo dhan aniga iskale waayo culays badan baan saaray iminkana karaaba laga doonaya hooyo balsug anna waxaan ku mashquul ahaa uun noloshayda oo wax gacanaba maan siin walaashay yaasmiin maxaanad gacan siin gacaliya hooyo waxaan had iyo jeer u malaynayay yaasmiin inay lacag u kaydsan tahay oo aynu isku hallayn karno innagunbaa sidaa qabnay waa kee qofka aan meel waxba ku kaydsanin odanay ciday meel wax ugu kaydsan tahay ma jirto adigana ha ahaatee dhammaanteen waxaynu isku hallaynaynay dhinaca lacagta inay yaasmiin naga kaalmayso anigu weli maa fahmin waxaanaad ka hadlaysaane waa maxay dhibaatadu miyaana yaasmiin nabad qabin hodanay inantaydii yaasmiin way khasaartay dhammaan ganacsigeediina waxba kama hayso xitaa dahabkeedii kaydka ahaa baynu isticmaallay ama waxay ka dhigan tahay inaan anigu jaariyad heli karayn kii xalliye saaka daal baan khalaas ahay hooyo ikraan caawa maxaad jeceshahay inaynu ku afurro oo soo xaafadda ka afuri mayno mise hoteel baynu aadnaa dukaankiina wayna sugahayay aniguna daalkii xalay baaban bes laahee daalkow ma joogtid adiguye balkeen taleefonkaagii hooyaan eege waxay saxaafaddu ku qortay xafladdii xalayto waa kan moobeelkayga shaqaalii dukaanka waxay ii sheegeen inay durbe helaan dalab badan oo haddeer toobabka dumarku ugu jecel yihiina waa war farxad leh ma eegta wixii ay warbaahintu inaga qoreen iyo wixii ay dadweynuhu inaga yidhaaheen hooyo degalladu war fiican bay qorahayaan dayday ciwaankan dukaan casri ah oo toosan laga furay waan farxsanay maamo maasha allah waa war farxad leekeen oo sawirro lama socdaan miyaa kuwani waa markii aad tusaysay dadka marihii adigu aad samaysay fiiri hooyo sawirro aad u quruxsan ayay naga qaadeen bal hadda fiiri dharkii aan kuu sameeyey sida aad ugu soo baxday maasha allah balaa quruxdaada aad ayay u fiican tahay in ganacsigaaga gabadh sidaadaa u qurux badani ay aas-aasto sawirkan fiiri waa markuu jaamac furaha gaarigiisa kuu dhiibahayey waan ka xumahay inuu aabbahay darawaluu moodo inkastuu shirkaddiisaba adha ka shaqeeyo eegaag sawirkan degelkan war fiican ayuu kaa qoray khudbaddaadii xalay aad bay cajiib u ahayd af soomaaligaagana lama moodaynba inaad qurbaha ka timid ma tiri hooyo anna waxaaban islahaa meeshaabaad ka cadhadhi haddii lagugu qoslo horta waxaan anigu aad u farxay markii uu aabbaha hore xafladda uga baxay waayo jaamac ayaan doonaya inaan kala hadlo ballaadhinta ganacsigayga oo kaalay adhama jaamac wiilkiisu baa qofka xafladda la soo gelahayay waan filayaa ma indhahaa kuu yara qabtay wuu dhar xidhasho fiicnaa soo maaha maya sidaa ulama jeedo hooyo ee addii muddo dheer baa wada hadlayseen jaamac haa ganacsigayga dahabka ayaan doonaya inaan ballaadhiyo meel cusubna waanu rabay markaa isaga ayaa wax dhiseen waan kala tashanayay laakiin waxaad u qoslaysaa sidii qof faraxsan naa maxaa ku jira dee haddaan u qoslo